السلام عليكم. kusoo dhawaada kanaalka Somali Science. insha Allah maanta waxaan idin wadnaa xisaab logic ah. waxaan cadeyn doonaa eber loo qeybiyay eber inay la mid tahay 2. laakiin mar walba xusuusnow tiro walba hooseeyaheedu yahay eber inay tahay khalad. isticmaal calculator-kaaga ama telefoonkaaga adigoo gelinaya eber loo qeybiyay eber. insha Allah wuxuu ku dhihi doonaa cannot divide by 0 ama tiro walba isticmaal 10 loo qeybiyay eber 5 loo qeybiyay eber hooseeya xisaabtaas ma shaqeyso. laakiin insha Allah waxaan cadeyn doonaa si logic ah. nala soco. eberka kore waxa uu kala qaadaynaa 100 laga jaray 100, kan hoosena sidoo kale 100 laga jaray 100 waxay la mid tahay 2. 10kan afwan 100kan isku keen waxaa samaysaa 10 square ah laga jaray 10 square ah. wax isbedel ah ma sameynin. 10 square ah waa 100 laga jaray 10 square ah waa 100 loo qeybiyay 10 lagu dhuftay 10 laga jaray 10. sidoo kale isbedel ma sameyn. 10 lagu dhuftay 10 waa 100 laga jaray 10 lagu dhuftay 10 waa 100 waxay la mid tahay 2. qaybtan kore weli si furfur oo waxa dhahdaa 10 lagu daray 10 lagu dhuftay 10 laga jaray 10 loo qeybiyay mid hoosteeda u soo qaado 10 lagu dhuftay 10 laga jaray 10 waxay la mid tahay 2. qaybtan kore weli isbedel ma sameynin. 10 lagu dhuftay 10 waxay la mid tahay 100 dhinacan imo 10 inta furfur 10 lagu daray 10 lagu dhuftay 10 laga jaray 10 10 ku dhufo waa 100 10 ku dhufo waa plus 100 minus 10 plus 10 ku dhufo waa minus 100 tan sidoo kale waa minus 100. labadan isla bixi waxaa soo haray 100 laga jaray 100 weli isbedel ma sameynin. waxaa joogtaa meesheeda. marka saa u jeedid qaybtan kore tan xisaabtan iyo xisaabtan way isleeyihiin waana sareeyo hooseeyo isla bixi. waxaa ku soo haray kor 10 lagu daray 10 loo qeybiyay 10 oo la mid ah 2. 10 lagu daray 10 waa 20 inta soo 10 lagu daray 10 waa 20 loo qeybiyay 10 waxay la mid tahay 2. 20 u qeybi 10 waa 2 waxay la mid tahay 2.